Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan kugu soo dhaweynayaa macadka Hodman. Videogan waxaan uga hadlaynaa sidee wireless-ka ama Wi-Fi-ga loogu xiri karaa computerkaada ama Windows 10. So waxaa imaanaynaa halkan taskibaarka dhanka midig iyo inta badan ka soo muuqda. Waxaan tegaynaa calaamadaas. Waxaan dhahaynaa click. Dan waxaa ku soo muuqanayo halkan kaaga soo tixmaayo dhammaan wireless-ka kaaga ag dhow oo ku soo qabanaya every wireless oo agtaada ama xaafadaha kuugu dhow iyo soo qaban doona. So wireless-ka adii aad rabtid iyo waxaad doontaa click, dan waxaad dhahaysaa connect, dan wuxuu ku weydiin doonaa password haddii uu password leeyahay. So waxaan leenahay waxaan gelinaynaa password-ka. Kadib password-ka markaa gelisid waxaad leedahay next, yes. Automatically wuxuu hubinayaa password-ka inuu sax yahay. Automatic wuxuu leeyahay wireless-ka loo yaqaano Cabdalla connected secured. So automatic meesha haday oo ahayd wireless-ka wuxuu isku bedeshay calaamad tooska wireless-ka loogu talagalay. Haddii aad ku laabato wireless-ka magaciisa oo aad dhahdid right click waxaad ogaan kartaa waxaa ka dhigi kartaa wuxuu ku ogolaanayaa inaad dhahdid disconnect oo connect aad kala laabatid oo iyo inaad dhahdid forget oo password iyo wax dhan aad dhahdid iga hilmaam oo iska kansashid iyo inaad dhahdid property oo ogaatid description-ka astaamaha magaciisa IP-ga uu ku xiran yahay iyo waxaas dhan diyaartiin ogaatid property aad isticmaalaysaa iyo tab-kan aad isticmaalaysaa. So waxaa kale ogaan kartaa password-ka wireless-ka aad ku xiran tahay haddii marba aad ku xirantay. So waxaa imaanaysaa meeshaas wireless-ka waxaa dhahaynaa right click, then waxaa dooranaynaa open network and internet setting. Waxaa noo soo saari doonaa view-gan box-kan. Kadib waxaa ka dooranaynaa network and sharing center. Kadib wuxuu ku soo qaban doonaa Wi-Fi-ga aad ku xiran tahay magaciisa loo yaqaano Cabdalla, then waxaa ku dhufanaysaa click. waxaa sii dooranaynaa wireless properties. Kadib waxaa sii dooranaynaa waxa loo yaqaano security. Kadib meeshaan ay ku qoran tahay network security key halkan iyo kaga muuqata password-ka waxa loo yaqaano wireless-ka ku xiran tahay. So password-kan inta badan uu qarsan yahay marka haddii aad inaad soo muujiyo waxaa isticmaali doonaa jeega saarayna show character. Si automatic waxaa arkaysaa password-ka wireless-ka ku xiran tahay. kadibna waxaa leedahay okay. haddii aad halkan waa ka bedeli kartaa. kadibna waxaa leedahay okay.